wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa go'aano cusub ka soo saartay howlaha imtixaanaadka sidii faafahinta amuurta warkaani ay ku eegayso Maryan Maxamed Cali. wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay soo saartay go'aan ku saabsan dhinaca waxbarashada loogana hortagayo cudurka COVID-19 war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ayaa lagu shaaciyay qodobo ay ka mid yihiin in la joojiyo bixinta casharrada dugsiyada sare ee sanad dugsiyeedka 2019 sanadan 2020 sidoo kale wasaaradda waxa ay sheegtay in arday lagu qiimeyn doono halkii casharradii u marayeen xilligii lagu dhawaaqay xiritaanka iskuulada oo ku beegnay 19 Maash sanadan 2020 ugu dambeyntii waxay sidoo kale sheegtay inay dib ka soo sheegi doonto xilliga la galayo imtixaanka.